mujaahida laysayo ninkii arligiisa iyo u go'aya hadalko ilaahay adaa u dhow rasuulkii adaa agdegay waxa aan ku galay 1988 kii maalintii ahayd taariikhdu ka hor waxa Ethiopia heshiiskii ay wada galeen iyo Soomaaliya awgeed baa keentay in la soo tuuro Hargeysa talaashgeed oo laga howlgalay sidii abaab degdeg looga geli lahaa Hargeysana loo qabsan lahaa loo isku dhex tuuri lahaa magaalada gudaheeda talaashgeed maalintii waxa ka soo qaadnay maalintii meesha la masaajidka waxa taliye qaybeed ahaa Ibrahim Nagoweyne musabbixina qaatay abandulaha saasan ku soo howlgalay taliyaha ciidankeena witaanaga waxa uu ahaa guutada la ilaas Said Umar Barno waxa uu tay Maxamed Cilmi Samatar oo gacmo dheer abandulkiya gacmo dheer waxa uu ahaa sahankii Hargeysa soo galay waxa uu naga soo horeeyay maalinta Hargeysa soo galinay muddo 3 casho gudaheeda ayuu Hargeysa sii joogay sida la ashgeed waxaan ku kulannay anagu waxaanu ku soo ka soo baxnay masaajidka gaari baa ahayd waxaanu ahayn 6 gaari oo weyn xamuula iyo 5 gaari tinka ayuu tiiban ku soo galay meesha Sheekh Moolel la marka la ila ay diyaaradu naga dultay Sheekh Moolel marka marayno Sheekh Moolel maalintaasi waan ku dhaadhanay diyaaradu waan uga dignay diyaaradu inta sawirtay jasnadii bay tan wax sawirtaa way naga dulqays salaashigeed waxaan kaga soo dhaqaaqnay halka haddana kullayadeedii baan soo wadanay Sheekh Umar markaan joogno ayaan ku dhaadhanay Sheekh Umar bal loo kaga soo qaadnay in sidii markaa Sheekh Umar timaadeen saacada insan todobadii iyo barkii mila subaxnimo habeenimo halkaas oo dagaal markaa aan ku roob yar baan ku daayay roobkii markuu daayna shuux yaraan ugu qoynay oo nasanay ayaanu shalay taangiyo Sheekh Umar ka soo geliyay yaaqin sidii baan horta aan halkii kaga adkaanay qoladii waxaana naga dhintay mujaahid la ilaa saraaye ilaa naxariistay ninkii nagu horeeyay nagu dhintay midaas waa inta halkii waan ka sii qaadnay si aan ba qaadnay socodkeygii waxaan u qaybsanay 3 qaybood qaybta qayb la xadra wishta qayb la ilaado birshax ayaan 3 urur ugu kala qaybsanay oo Sheekh Umar guutada labaatanaad oo ahayduna raac dambe ee soo geliya marka akii culays kala baxaysteedu ay raacayso ayaa waxa dhacay in qoladii Sancaani oo ahayd aaga shishe ee airport ina gasho ayaa waxa aan noogu yimaadeen Sheekh Umar markay Sheekh Umar noogu yimaadeen waxay noqotay in decision-kii hore ee aagagii la kala qaybiyay in la yiraahdo waxa laga socdo halkii socdona akil qosnaan maray waxaan kamid ahaa anu marka taliyo urur baan ahaa waxaan galay waxa la siiyay marka hore waxaan lahaa meesha la yiraahdo qaybta laakiin waxa lagu yiraahdo wareegaysaa in hadda laga bilaabo saacada abandulad ayaa noqonaysa ururkan ayaa ka noqonaysa abandulad dagaal ururkaas ka jooji galkan abandulad ka hayso ayaa ka tahay waxa gelaysaa qaybta waxaana marka bixiyay marka Maxamed Cilmi Samatar maxamed cilmi galaan oo hadda tali ciidankiisa Umar oo dhan sidii baan ku galay meesha lagu yiraahdo qaybta qaybta ku soo qabsanay qaybta markaan soo qabsanayna wax noqotay inaan ku sii gudubno oo ciidankii kaleeba dhist leesla shugubayo oo mid qabsado markiiba degdeg u qabsado miska saraakiisha daraawiishtii dibadna wax noqotay birjeex inaan haddana aanu istaagno annagoo ah 9 iyo ciidankiina u kaleera midba ma aad ka qabsaday annagoo ah 30 nin waxaan ku galay meesha la birjeex iyo Afrika technical
وكان قدرات عبد تحصلون على المعلم إلا هو ميدان ومكانايس له هو حروي هو واحد تبتدي لا هو كور الأرض والله واحد تاسوا واحد وحيالها يقول عجيب بدن أي مسكحه وحيالها قد مصور كت مسكحها ما كانت إلى هي هذه قربة تاجين وهذه كل عصيه مسويري كرتي من الشيء كرتي وحيالها قد صوته واحد كل إنتي إلى أن حرستي ninkii xasuunaa bal loo jiray gaariga ku digaal ahaan jiray oo sabbuutida saxaani ka tirsan jiray ayuu halkii ku dhintay ugu horeeyay waxa ku xigay ina ko saar nin la yiraahdo isna saxaani ha oo dhaawacma in xasan kula la yiraahdo isagoo ku dhintay sabbuutida afraada oo kamid ah marka 20 kamid ah وانا نلش عيش الشيخ مرهان وكنت ما قد أشيء وعن كل شيء يمكن نقول لنا ماشي بالشهر وحيلا قال كل مسكحة أنا شو كده أنا واحد حسنا هاي أنا وتاجن البرية بالشهر وكفر إن ضدك محابس تاها كحدنا بالشهر لأن عكس وش بالشهر مع الباب كإيجا توسو إيجا مش هيد بيبسي الباب كوين أنا توس وقال قاعد نقول كوين ما في حد لحية ركن لحية صباح نمو مخابئين ما نشين وحانو قال لي تضبطي أشلا أنا قال لي ماشي شحنوا موابرين هل متقول بس يستحق إلى هالك أفرت قاعدين وذن ميدوا ساي سكسارية ونقول له شيء لا نحس ما كنا بيه أنا قاقا ودي وحيلا قاب كوداني فسر تيجر وتيجي كده حيستي فيصل إبراهيم يوسف فسر تيجر وتجاس اللي قال مكان أنكاس وتيجي كده وتي أبرت جاري وحيالي لو قبل شاب نوع حد مركي أنقلني هل بتقول لها قالوا شيء وعن أساس أنا تاجين الجرياس وتشيك عاد قريب ماشي نقول ما الله يمك بريتري ما له هنشري أيوة وعن أساس وعن كي شو هذا كده بيتبه شو فقش كلام صورة وعيدا ولا وروا عنو ير سؤال وروا عنو ير كذي كيرنا للسعودي وآذير أو إريانية إلى ومدلية يقرأ أربعين تجيدي وروا عنو هبل ورش كذي وعنو ير في الدوار ده أيام كل شيء سوانا كورين وحيالها مركا سلمان صور إلى يوم واحد قطامي تروح إلى يوم قطامي وياه ماشي الحوكيو واحد اللي ميجريني نقول إلى هاي رأسين يوم بدور كذا سألت كذا عن حسوستا أقول ما أنا وحين مريتري ما أنا وحين بتشح روين كذا ما نكلا كل سلوك السعودي بالأفريقيا واحد ما نكلا كل ده أقول ما أنا وحين وحنا حسوستا نكل عقد الدملة لا سحرديد وقاري شيبة ولا ونقول هو ضح كبحة أيانا كان ayaa waxaanu galay miis saacin meel leeyahay miiska saacin ismada la wada dirgado iyo gaagaaban inta wada laalay show wixii bulshada xalkay eedinay iyo wixii laga soo eeriyay halkan daraawiishta oo miis saacin ka isku tii ayaa afka uga galay intuu lagu wada yaro doox ka baxdaan kana saacin ka dhacaysay miiska sida ee halkan la ilaahay iskala dabadeeda u dagaalamay ayuu yiri albaga la halkan waxaan galay laba bisad aad guri ku xidhatad gud la casho si kugu soo boodi mayso marka dambaad tabtaas kale lagu noqoto 7 milyan iyo agteedu ma laga bilaabo dirgada yar inta la waxa meeshana ma xeexeedana waxay noqotay in dib uga soo yar baxay dib inaan bulshada ugu soo noqono nashib dabate aqoonlaan waqti la amal marka waxa khibrada ay aqoon lahayn wax badan waxa tagnaa 60 gaari oo rasaasdi wadada shacabka lahayd waxa kale kale hadaan 10 gaari ka xasan ina rasaaslaan bi soo loo xeelay dawaan iska daafino waxaan rahan wadi soo noqon waxaan soo markaan bulshada ka soo bixi doono waxa loo yimid taangiye la geeyay barka لقيه ودوش الجو ونقول صوت على عين أنا جاء
dhex baahsan dexalada iskaayo soo dul istaagay sidii aan ku wada naxnay aan showna wada qabsan gaaray qaarkeeyo taangi iska socda oo soo istaagay laakiin ilaa xastay man adag oo nala socday oo jiibka rideeya ka ah oo markiiba qabatiyay xabadii goors gubeena mashaariis markii ay gubeena taangidii kale ay ku soo dhici waayeen xirada soo dhaxla oo qaateen inta wada jiimeel ugu sii dhaxjo taasaan noo banaysay fursad noo siisay hataa anaga waqtigeega inaan iska bixi karno aan ka bixi karno bulshada meeshana qaabkan u soo galnay qaab kasta ha noqdee waxaa markii dambe dilay nin kastaaba inay xaawile ka horeyso oon ka horeyn oo qaabka laga xisaabtamay halkaa waxaa la odhanaya halkaa faqashtiba jooga tooba ku sii yaacay iyadoo markaaba ayadaan isku shay tobankaasaa wadda waxay ka adkaayeen kontonkan inay meesha jooga ama lixdankan inay meesha jooga markaa xeradii sidee uga baxday markii dambe xeradii waxaan taangiga markii la gubay waxaa naga wax ciidan taangi ah oo la soo geli karo madaxfiicna u garaaci karo ayaa jiri waayay ilaa wuu dhex jirnaa ayay soo geli waayeen foodin oo la soo geli waayeen salaashkii waxay noqotay inaan ka baxno waanu isnaanu ciidankiina kala gurmada albaabka bisheex markaan taagan ayaa waxaa nala kulmay hal beebe gaari suuya oo qolka waayay gurmada ayaa labadaas oo toban yaa ayaan soo qaaday labadii gaari meeshaan ku qabanay ilaa waxaan xastin in leeyahay xulud qoraa in loo jiray iyo in loo jiray riig ayaa fuulay labadii gaari sababtoo ah anigu tigni ka rula wax kasta oo la qabta waxaa ugu horeynayay tignikada iyadii hore si aan loogu qaldamin oo aan loogu qaadan in tignikadii faqashti ay tahay kuwa loo soo gashay oo aan loogu dagaalamin ayaa waxaa la samayn jiray in la soo qaado tignikada aan hore u lahayn inay hor socoto si ay kuwa kale aan loogu qaldamin tiiba waxay keentay mushkilado badan oo gaadhiba nin baa la dhaqaaqay gaadhigii siyaarkaa annaga iska gudbay sababtoo ah marka uu marayo hadiisa kilaab dabadiisa ayaa ciidankii u qaateen gaadhidii xaggana risaas ku jeedaan ciidankii gaadhigeedu jirina oo xagga ka soo baxay isla markiiba ciidanku xaqabsiisay oo kuwa ay ku dhinteen ilaa 4 mujaahid qaarna markii dambe ay ka lugeeyeen way markii dambe faqashti ku dishay meesha lagu dhahdo boqol jiri hoostiisa ah oo ay ku dishay marka anu waxaan ku dhawaaqay meesha barjeex lagu dhawaaqay lafteeda isla markaa soo galay aroonimadii 11 markii aan ka bixi doono misaajinka meesha leeyahay ayaan ku dhawaaqay oo labada lugood ay ka jiro waxaan ka baxnay halka meesha ganal leeyahay ganal ayaanu isnay guriyuhu inuu yahay guriyihii waxaan guriyahan ba mid dhigan guri baa la dhigay inuu gaadeen ilaa markay kugu dhacday bal ma xasuusan kartaa saacada kugu dhacday maxaad ku jirtay hawlgalka ku jirtay adigu sidoo maxaad helaysay sidee soo socotay ma adoo sii jeedaa lagu joogtay ma nin ilaahay aan xariistay xasan kuule nin kale oo misaajinka markaan ku dagaalamay aan kaga nimid meel agteed ayaan ku noqonay marka aan isku qabanay ara ku noqonay meesha wada kasay iyo waan ku noqonay amaani ka xaligay agimid marka ninkii markaan saas xogaa ku dhigi jeediya aanu ku sii socdan soo qaatay ayaa markii aan tunka soo saartay saas ayay u bilaabatay marka buuxdii ka dhacdo wala soo carray oo way jiidinaysay toore dhinacyada dhan markii dambe waxay u dhigteen halka ayaa halka ka dhacday halkaas ay soo baxday inta halka ay ka dhacday ayaa ka soo baxday markii aan iyaga in yar u jiro ayaan isku weydaartay dibadda waan dhacay isagiina wuxuu ku duulay halkaas oo kale annaga kala ku dhacay kacbaan jiro markii aan kacayay tana la dhigtay taajil eega nafteed
markaa ku qaaday adiga isagina waxaan oo dhan waa rasaasi ku taalla jirkayga rasaasi ku dhacay waxa ay qaaday ciidankii oo soo dhawaaday markaa oo la soo dhawaaday sidii aan sidii oo la soo dhawaaday yagi marka anugu markay damqa waxa kala horti xagga ilaa nabadda qaaday xagga ciidanka gaadho dabqashada kuma talabo saacalaysa naftu waxay naxariista aragtaa ama ay aragtaa xanuunka aragtaa waa markaa isha gacalkiisu laakiin markaa isha gacalkiisu haddii istaa ku lugto anigu lugtaas ay marashiido imay damqanay marka xataa imay damqanay isku taag baan waan isku noqday waan soo wax saas u dibadna u soo iyagii baan ku dhawaaday dibadna labadeediiba waa la qaaday gaariga naasaa damaqa waxa kugu horeynaysaa ma xanuunka kugu horeynaysaa isha gacal marka hada hesho afar garanaysaa aragto ayarta lugtu ku xanuunaysaa ka damqanaysaa waxaa la iga tegay aniga meesha la markaa ka bacdi waxaan la dhigay meesha la yidhahdana anoo dhaawaca laba nin baan may nin la odhan jiray guri faroole oo ahaa ninkii baabuurkii geedible ugu horreeyey ka qaaday geedible laba guri baa la iska yaaqay wakana labada guri ee la iskaaga garab dhigay isaga qoladii loo geeyey oo weliba qolo isaa qaad way soo sheegeen oo ku dagaalamay dagaalkii ku dagaalamay isna waa la dilay isna waxba ku laay laba guri isku dhawan joognaa aniga waxaa la dhigay guriga la sheegayo ogaadeen baa la guriga aniga la dhigay waana ogaadeen dadka la dhigay wii badbaadiyey iska daayo biyaha la cabay ii diidan isagoo dhigayga socdo ayaan ku yidhi biyay dhiiba way diidan biyanaysa subag iyo shaah bay sukay dareen waxay ku yidhahdeen waa lagu biyo baxaay waa lagu dhig baxaay cunaha ku qoob shaaha iyo subag ilaa maalin anigu markaa waxaa haysata xaggan aanu joogno inaa la dhigay faqashkii baa haysata yaa nalo markaa ku jirno muddo 9 cashaa ayaa waxaa soo gashay qoladeedii sanadku gacmo dheerooto maxamed xasan sidiiba horta aan kaga saarnay laga soo saaray annagana laga soo qaaday markaa sidee lagu gartay inaad ku jirto mujaahidiintii dhigtay ayaa u sheegtay gacmo dheere inay digeen meesha la yiraahdo oo ahaa markaa iyaguna xero ciidana naga siraysay reerkiina maxaa ku qaxay reerkii ugu dhintay may reer ogaadeenay haayeen mana qaxin waanay hayeen saadabiya kaga darantee mar ay faqashto doontii guryaha barbardo ya aan dhagay wax ku leeyahay hadii waraadiyada moodaysa wadabada nooga baxay awga la gubi liimana soo gelin liimana baari iska daayo wallahi sidii hayeen kan ma jiro waxaana iga wareeyeen talaabo war hadii kii idinka haye kula socday hadii reerkii idinka ahaaba soo sheegay oo si adag yahay oo diidana oo biyay ilaalinay oo iyagu dhaqaatiray haayeen marka gacmada markuu soo galay waa laga qaaday maxamed xasan baa maalin markuu soo galay ayaa siduu soo socday dulmi inta shuguri soo saaray gaari la fursad la saaray sababta toon ladana ku isaga qaaday buurta la gees marka aanu moogay waxa kan deela joogay yaa akida laanu ku xisay dhexdeeda joogay markaas markii aan tigayna madfuc baba guriga ku jiray agtiisa kuna halkayga madfuc ku gac ee ku jiray dii markaas ku roray markaas oo taxriga xanuunka la sheegay iyo waxa la sheegay 7 cashan la ma dareemi wax dhibaato ah oo haysta laakiin markii la qaaday ayay ugu horeysay dhibaato iyo meel kasta oo ka taxatay ileesha gacmo ka dhafta aragto hebelo garanayso ma ka aragto ayay meesha ku damqanaysa laakiin inta korso kuma damqanayso way aakhirka xaggeedu adiga markii laga qaaday waa la iga qaaday waxa la geeyay meesha geeddeeda la ilaa geeddeeda diyaarada lagu rushay gaari warshad ku geeddeeda ma ahayn yeeshinaha meesha yeeshinaha ayo diyaaradii warshad qolada rushaysan waxay noqotay keligii la iga carromay keligii
يعني أنا أقول لك أبغى كشغلة ما تاريخ الكورونا عندنا سنة أبو قرب قش كبير تيسلم تا إيش كورونا عندنا مرتا waxaan ku beeray kunsiga boqolaad kristiitinkii anoo ka baxay dugsiga sare Tuulasiistoon yaa tagajun ayaa waxaan ahaa ardaydii tagi lahayd xamar ee gelaha xalane waxaan suugu gudbeen kalo aan xalane xalanahan kala qabo saasan qarmo uga mid warkii marka in si tababar baafto inta joogtay waxaan qaatay laba tababar mid special commandos iyo mid tababar caadi ah marka dambana waxaan macallimiintii baabuli ee ardaydii 1996 soo galay ayaan macallin waxaan ugu ahay special commandos inaan tababaran si way hawlgaladii inta soo galaysay intaan dheerkii la soo galay hawlgalkii kugu matalan kugu baana kuma ee aad ka soo galbashay waxay ahayd marna 86 aan soo galay Hargeysa ee ugu banaa igu xumaa oo meesha la yiraahdo masala waagu naga bariyay nalaga naxay marka maxaa asla dagaalan waxa weeye meesha la yiraahdo imika halka la yiraahdo Star House-ka oo wafti imanay wan habeenkii arbishni intaan arbishni aan xeero u baxnay aan dibadidna u kacnay oo waagu naga bariyay halka oo aan ku dagaalanay faqashtuuna nimanka darawiishta leeyahay aan iska helay markay saacadu ahayd afartii iyo barkii kala duwan dabadna naga dishay ilaahay xashana ka rabiye abib cali riyaale iyo Umar Daad mujaahid laysayo ninkii arligiisa iyo u go'aya hadalko ilaahay adaa u dhow rasuul